بسم الله الرحمن الرحيم waxaan bartan uga jirnaa maadadeena xisaabta kalaaska form 4 chapterka koowaad oo loo yaqaano analytic trigonometry. isla socod wanaagsan. Trigonometry chapterka waa trigonometry. ciwaankeenna waxaa waaye proofs inaan caddayno of sum and difference identity for cos a minus b iyo cos a iyo sin a minus b. waayahay hore waxaan soo caddaynay cos a plus b inay la mid tahay cos a cos b minus sin a sin b. qaacidadan waa isticmaali doonaa marka waxaan soo naqayno waxaa waaye inaan isticmaalnaan rabnaa. we proof that waxaan caddaynaynaa cos a minus b by using aan ku isticmaalayna above formula qaacidadan kore aan ku isticmaalayna. qaacidada kore noo soo qaad marka. qaacidada kore maxay dhigaysaa cos a plus b waxay la mid tahay cos a cos b minus sin a sin b. bis angalkan bisaan wax ka bedel ku samaynaynaa cos a plus b cos a plus b meeshii a plus b heeday ayaa waxaan ku bedelaynaa a plus minus b a plus minus b bdaana minus ku dhifanaynaa bis meeshaan angalkana minus ku dhifanaynaa. haddaan minus ku dhifanno maxay naqaysaa u furfurmaya marka waxay u furfurmaya cos a waa caadi ku dhacsan cos b meesha la dhihi jiraa cos minus b laga leeyahay minus sin a waa caadi sin b meesha la dhihi jira maxaa la leeyahay sin minus b angalka b aan minus ku dhifanaynaa muga cos minus b iyo sin minus b bisaas bedelayso. markaa kadib maxaa soo baxaya halkaa mug la joogo waxaa la yidhaha marka cos xagasheedu minus haddii laga dhigo balaas isku bedelaysaa. cos waxaa la yidhaha waa even function even functionna minus ma aqbalayo. tusaale ahaan squareka iyo cubeka mug la joogo iyo waxaan soo bara jirnay number minus haddii la isku wargeero balaasuu noqdaa number minus haddii la cube gareeyo minus uu kusoo laabtaa. functionada evenka ah waxaa ka mid ah cos minus ma qaadato marka angalkeeda si kastoo minus looga dhigo balaas ay naqaneen halka sin ay tahay odd amba ay tahay kisi mar hadday kisi tahay minuska waa saameynaya. let's go cos a minus b waxay la mid tahay marka cos a cos minus b meeshaheeda minuskan costaa liqaysa cunaysa waa baabi'ina cos b ka soo baxay minuskan waa kana sin a minuska inta yiilay banaankaanaan keenayaa hal baraakadan baraakada lagu xirayaa then sintan minuska ma baabi'i karin minuska horow yimid marka coskan minuska way baabi'isa wax minus dhinacan kama jiraan minuskan iyo minuskan bisaas ku dhacaya marka cos a minus b waxay la mid tahay cos a cos b minus ku dhifo plus sin a sin b. qaacidada cos a minus b na waa tan ayadoo caadiya cos a minus b halkaa ayay ku caddaysan tahay marka cos a minus b proofkeedu ma dhib badno waxaa la sameeyaa cos a plus b ayaa angalkan b ah minus lagu dhifanaa halkaasaa ka caddaynaysaa. waxaan gudbaynaa sin a minus b sin a minus b aan gudbaynaa. waayahay waxaan isticmaalaynaa idana sin a plus b inay lamid tahay sin a cos b plus cos a sin b qaacidadan hore aan soo proofnay hadda dib aan soo isticmaalaynaa marka we proof that waxaan caddaynaynaa sin a minus b by using aan ku isticmaalaynaa above formula qaacidadan kore aan ku isticmaalaynaa ayaan soo caddaynaynaa. waaya sin a plus b qaacidada kore maxay tahay marka sin a plus b waxay la mid tahay sin a cos b plus cos a sin b waaye angalkan b ayaan isagana minus ku dhifanaynaa bisle waxayna qamuga sin a plus minus b is equal furfuree marka sin a dan plus waaye sin a caadi naqay cos b mil dhijir waxay naqay cos minus b plus cos a sin b mil dhijir waxay naqanee sin minus b ay naqanaysaa. sida dad hore soo sheegay minuskan waa baabaa laakiin minuskan intuu kusoo dhici doonyaa calaamadan uu saameyn doonyaa waa kana marka sin a minus b waxay la mid tahay sin a cos b bisa ka imaanamin minuska inta yila plus uu ku dhacaa minus plus ku dhifo waa minus cos a sin b kadib qaacidada sin a minus b na waa kana iyadoo kooban marka sin a minus b waxay la mid tahay sin a cos b minus cos a sin b sidaasay ku buruufantaha waa fudud yihiin labadan. waayahay trigonometry ratio-gu wuxuu ajiriyey saddexda asalka waxay ajirta cos iyo sin iyo tan cos iyo sin waa soo qaadanay
tan ayaan idana proofeynaa tan a plus b iyo tan a minus b ayaan proofeynaa idana waayahay we proof that waxaan caddaynaynaa tan a plus b tan a plus b aan soo caddaynaynaa intaana soo caddayn ka hor marka waxaan leenahay we know that waxaan ogsoonahay sin theta inay la mid tahay sin theta oo loo qaybiyo cos theta mar walba tin waxay ka timaadaa ratio y waxayna ratio u tahay waa sin of a cos sin of a cos markii aan oraadi hore oo sin soo ka to aan isticmaali jirnay tin to amgaldhiha waxay ahayd mugta opposite loo qaybiyo adjacent sin to hypotenuse shaqa ku malaa marka maadaama opposite-ka uu taagnay marka sin adjacent-gana ay u taagnayd cos unit circle marka la joogo mar walba tin waxaa la dhihi karaa waa ratio waxay u tahay sin of a cos waaye ratio of sin of a cos waaye marka qaacidaan isticmaalaynaa sin of a cos waaya tan a plus b maxay lamid noqonaa marka haddii tin theta inta lamid ah meeshan theta a plus b ku bedel marka meeshan theta waxaan ku bedelaynaa a plus b sin theta of a cos theta midayno sin theta meesha la theta kasta a plus b ku bedel marka waxay noqonaysaa a plus b loo qaybiyo cos a plus b ya waa isla intaan qaacidan waa isleeyihin laakiin thetadan ayaa waxaan ka dhigay a plus b thetadan waxaan ka dhigay a plus b thetadan kale waxaan ka dhigay a plus b firs waxaan furfuraa markasan a plus b qaacidadeeda waa aqaanaa cos a plus b na qaacidadeeda waa aqaanaa waa furfuraya midaan waa soo ceshanaya waxaan raadina waa iyada tan a plus b waxay la mid tahay marka san a plus b furfur waa sin a cos b plus cos a sin b hoosna waxay noqonay cos a cos b minus sin a sin b ya cos a cos b minus sin a sin b divide each term tibix kasta oo ka mid ah qaybtan suko by waxaa u qaybinaysaa cos a cos b awday waa cos a cos b dan ayaa tibix kasta u qaybinaya tibix kasta marka lagu leeyahay inta u qaybinaya inta u qaybinaya inta u qaybinaya inta u qaybinaya qaybtan waa waxaan soo raadinaya ida ka leexa dhinacaan waxaa leedahay marka tibixdan u qaybinaysaa waaya haddii loo qaybsho waxay noqon marka tan a plus b waxay noqotay sin a cos b dan kore waa loo qaybiyey cos a cos b plus cos a sin b waxaa loo qaybiyey cos a cos b loo wada qaybiyo dheh cos a cos b hooso isla iidaa loo qaybiyo minus sin a sin b cos a cos b meel walba cos a cos b dan casaanka ayaan u qaybiyey saa u fahamtayna casaanan ka dhiga halkaan marka la joogo fiirin bayaa isla bixi karaa tibixdan waxaa isla baxaya cos b iyo cos b waa isleeyihin waa isla baxayan sin a of a cos a kasoo baxay meeshan ayaa isla cos a iyo cos a dan isla baxaya soo baxaya sin b iyo cos b halkaana fiiri cos a iyo cos a waa isla baxayaan cos b iyo cos b na isla baxayan meeshan wana ka imaanayso waa isku mid waa isla baxayan wana ka imaanay halkaan marka la jooganaya isla baxa wax isla baxa dhinaca ma yaalin sababtoo sin iyo cos ay kala yihiin soo ma halkaan marka fiiri ku laabano meeshan sin a iyo cos a bisa naga soo baxay intana waxaa naga soo baxay sin b iyo cos b ila socaya marka tan a plus b waxay lamid tahay dhinaca maxaa ka soo baxay sin a cos a plus dhinacana sin b cos b intana waxaa ka yimid wana ka yimid dhinacan kalena sidee ugu soo laabana wax baxaya ma lahan wax baxaya ma lahan then waxaan samaynaynaa marka halkaan fiiri marka sin loo qaybiyo cos mayno sin kor jirto oo loo qaybiyo cos maxay u dhigantay tan hadday a tahay inta a ka dhigay hadday theta tahay inta theta ka dhigay marka sin a cos a meeshaas ah tan a iga imaanaysa tan a plus b waxay lamid tahay kana horan soo qaad horan soo wareejiyey waxay lamid tahay sin a cos a maadaama tan ay tahay sin loo qaybiyo cos ka timid sin a cos a waxaa kasoo baxaysa tan a ka imaanaya plus sin b cos b na waxaa ka imaanaysa tan b angalka b c wankan soo qaado minus dheh meeshaan fiiri marka waa sin loo qaybiyo cos oo a ah waa tan a waxaa kusii dhacsan sin loo qaybiyo cos oo b ah waa tan b halkan waxaa ka imaan marka tan a ku dhacsan tan b qaacida ugu dambaysana waa kana tan a plus b maxaa loo furfuraa tan a plus tan b loo qaybiyo 1 minus tan a tan b waa kaasaan waayahay yaa noo dhiman tan a minus b yaa noo harta tan a minus b yaa noo harta waayahay we prove that waxaan caddaynaynaa tan a minus b we know that waxaan ogsoonahay tan theta inay lamid tahay sin theta loo qaybiyo cos theta waa isla tii hadaatay sidii hadaata waaye marka tii hore haddaa soo fahamtay oo san a minus plus b soo fahamtay tan a plus b haddaa soo fahamtay tan a minus b na si fudud aa u fahmaysaa isla wadadaya marayna wax kama bedelina waayahay
tan A minus B waxay la mid tahay leenahay sin A minus B loo qaybiyo cos A minus B theta kasta waxaan ku bedelay A minus B markaan data A plus B aan ku bedelay A minus B A minus B na ku bedelay waa furfuraya muga cos A minus B waa aqaana qaacidadeeda sin A minus B waa aqaana qaacidadeeda furfur tan A minus B waxay la mid tahay cos A cos B minus tanaa ku raysan A cos B minus cos A sin B tan A minus B la mid ah cos A minus B na waa cos A cos B plus sin A sin B meel walba cos A cos B aan u qaybinayaa meel walba waxaan u qaybinaynaa cos A cos B aan u qaybinayaa waa kana isla sida data cos A cos B loo qaybiyey sin A cos B minus cos A sin B loo qaybiyey cos A cos B cos A cos B loo qaybiyey cos A cos B sin A sin B loo qaybiyey cos A cos B labadan waxaa isla baxaya sida dati cos B iyo cos B kana iga soo baxaa inta waxaa iga timaad marka sin A cos A laga jaray naqay meesha intana waxaa iga imahay sin B cos B labadan ee isla baxa dhinacan wana ka imaana dhinacan sideeda usoo laabanaya hore ii keen marka halkan ay keen tan A minus B maxay la mid tahay mugad sin of a cos oo A ah waa tan A minus de sin of a cos oo B ana waa tan B loo qaybiyey 1 plus halkan fiiri sin A cos A waa tan A ku dhacsan sin B cos B waa tan B waa tan A tan B ku dhacsan proof iyadana waa kaasa in halkaas ayuu kusoo gabagaboobayaa casharkayni maanta taa intaad na soo gaartay waxaan kaa codsanaynaa janalka subscribe na noo saartid si aad casharo badan oo faa'iido leh u heshid aninkana dhiirigelin ay noogu noqoto kulanti dambe oo xiiso leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu